tix ka mid ah tixihii cali jaamac haabiil ee baadi socda lahaa. marka aynu dhanka bulshada iyo indhaha abwaanada ka eegno, cali jaamac haabiil waa abwaan in badan ay ku soo halqabsadeen maansayahanka dambe badankoodu. allaha u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi, faylasuufka iyo abwaanka caanka ah oo maansadiisii kala guran ee uu tiriyey gugii 2011 ku xusaya cali jaamac haabiil. wuxuu yidhi: cali jaamac guurguur, falfaloosi guux dheer, bari iyo galbeed saar, 6 god buu mar wada degay. cali sugulle duncarbeed ayaa gabaygii uu ugu baroordiiqay geeridii aqoon-yahan muuse galaal ku xusay cali jaamac haabiil. abwaan cali sugulle duncarbeed isaga oo la hadlaya muuse galaal wuxuu leeyahay: aakhiro waxaad kula kulmi doontaa boqorka maansada oo cali jaamac haabiil ahaa. waxaanu yidhi: gabayaaga boqorkoogii baad gooni u ahaane, giddigoodba cali jaamac baw garasho weynaaye, gardarrada ayuu sheegi jiray gacanku dhiiglaha. abwaan cali xasan aadan oo loo yaqaanay abwaan cali banfas, allah u naxariistee, oo kolkiisa ku soo halqabsanaya cali jaamac haabiil, waxa uu isna yidhi: geeridii xirsee laga nixiyo gacal hawaayeenta, cali jaamac lama gaasiro gocashadiisii dheh. abwaan dheeg oo gabyo door ah ku lahaa silsiladii hurgumo ee curatay dabayaaqadii 70meeyadii ayaa isaguna abwaan cali jaamac haabiil, allah u naxariistee, ku soo halqabsaday isaga oo ka hadlaya doodii dhex martay, allah u naxariistee, cali iyo hogaamiyihii daraawiishta, allah u naxariistee, sayid maxamed cabdulla xasan. wuxuuna yidhi: sida uu cali wadaadkii u muday ma u masaxay wiilka. gugii 1972 kolkii la hirgeliyey qoraalka far soomaaliga ayuu allaha u naxariistay abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye tiriyey maanse uu kaga hadlayey guushaas ummadeed ee hirgashay. markaas ayuu xasuustay in rag badan oo aakhiro u socdaalay aanay maanta farxaddan goobjoog ka ahayn, isla markaasna farriin buu u diray. isaga oo raggaas uu farriinta u dirayo cali jaamac haabiilna ku soo daraya ayaa waxa uu yidhi gaariye sida tan: soo toosi haabiil, raage taranta gaadhsii, u tukubi higaadoo 30 tirada dhaafsii, 10 shaqal ku geeraar. allaha u naxariistay cali jaamac haabiil waxa uu dhintay sanadkii 1909 waxaanu ku dhintay magaalada berbera. wuxuu ifka kaga tegey inan magaceedu ahaa khadrajinow cali jaamac haabiil. inantaasi waa ay tarantay oo waxaa ka dhaqan jilib dhan oo reer sacmaal la yidhaahdo. intaas ayaan qaybta koowaad ee diiwaanka hortay jire taariikhdii berbera